calool istaag waad kaga raysanaysaa marka ayaa kuugu dambaysa calool istaag haddii aad sidaan u samaysato. Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamaa qaarta sharafta meel kastoo dunida dacaladeeda iyo daafeed aad ka joogtaan ugu horreyntii kula saliya xabiibkeena maxamed suubaneena sallallahu calayhi wasallam. cimri dheer iyo cibaado suuban iyo caafimaad qab ayaan idin rajaynaya. waa walaashin xawataaka iyo barteeni youtube-ka oo isla socda. waa cuntooyinka caalamka barta aad naga daawanaysaan. haddaan nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan wax kastoon soo gelina insha allahu tacaala. maanta maxaan noo wadaa? maanta sooskan quruxda badan ayaan idin wadaa ood ka faa'iidaysan doontaan insha allahu tacaala. digirtan waa digirta cagaaran, midda diyaarsan weeye oo fridge-ka ku jirta oo dukaamada lagu gaday supermarketyada. digirtan waxaan ku daray waa yogurt ama caano garoor, caanaha dhanaan, kuwa ayaan ku daray. اللهم صل على محمد. kadibna waan soo shiiday. sooskan inaba caadi maaha runtii. mishinta blanderka gacanta ayaan ku shiiday, kan kalena waad ku shiidan kartaa. inaba caadi maaha runtii. اللهم صل على محمد. markaa waxay ii noqotay kareem caadi ah, sidii kareemkii ayay ii noqotay. sidoo kale meeshaan waxaan ku haystaa waa misirta jaalaha weeye ama misirka jaalaha. misirku wuu noocyo badan yahay, mid aan jaalo ahayn oo xoogaa wax yar dameeri camal ah baa jira. dhowr nooc ayuu leeyahay, laakiin kan waa jaalaha aan isticmaalayno. misirka sidaad ogtiin ba caafimaad badan buu leeyahay, calooshana wuu u fiican yahay. misirka waan soo dhaqnay, markaan soo dhaqnay oo soo nadiifinay digsigan ayaan kusoo shubanaynaa. dabka ayaan saari doonaa insha allah. run ahaantii misirku faa'iidooyin badan buu leeyahay, calool istaag dhan isma arkaysaan. markii aan soo karinay waad aragtaan dab badan ma qaadanayo, wax yar buu ku karsamayaa intishaa u karsamo camal. markaan soo karinay xoogaa indhaha uma roona, waad u jeedaan. soos ayaan waxaan ku daraynaa allahumma salli calaa maxamed, xawaashiyaan ku daraynaa. waxaan ku darsaday hadda waa cusbo iyo maraq digaaga oo nooca qudaarta ah. sidoo kale maadaama xoogaa kalarkiisi uu indhaha u roonaan waayey oo cadaan noqday, waxaan ku daray wax yar oo sacfaraan ah. sacfaraanka caadiga oo budada waan ku daray, waan isku walaaqay. kadibna kabsar caleen ayaan ku darsanaynaa. xawaashidan oo dhan baan ku darsanaynaa, filfisha madow oo budada, xawaash buurbuur iyo xawaash kastood adigu markaad danaynayso ama aad jeceshay. kadibna blanderka gacanta ayaan soo qaadanaynaa, waana shiidaynaa. waxaan ka dhigaynaa sidii kareemkii, waa ridqaynaa. ridqid soo ma taqaanaan? ridqid ama shiidid. si fiican baa u shiidaynaa si uu noogu noqdo sooskii aan rabnay. maasha allah tabaaraka allah. markii aan soo diyaarinay waa kana sooskii aan rabnay baa nooga soo baxay. sooskan isagoo sidiisaas ayada qaadada ku cabaysaa. sidoo kalena waxaad samaysan kartaa in aad cuntada ku cunto ood cuntada kaga shubato dhinaca aad ku